waxaana wanaagsan dhammaan daawadayaasheena inagu xiran kusoo dhawaada xogtii ugu dambeysay aan idinkaga hayno maamulka Galmudug wararka naga soo gaaraya halka kuwoodii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ay si rasmi ah gacanta ugu dhigeen ciidanka Ahlus Sunna wal Jamaa taabacsan kuwa oo ku sugnaa saacadii ugu dambeeyay duleedka magaalada ciidamada Ahlus Sunna ee la wareegay magaalada Gurceel ayaa la sheegay inay ka yimaadeen dhanka deegaanka Godwiil oo ay saakay soo gaareen wararku waxay tilmaamayaan in halkaasi ay isaga baxeen ciidamo booliis ahaa oo taabacsanaa maamulka Galmudug waxaana la xiray inta badan ganacsiyada magaalada iyadoo dad badan ay jidadka soo istaageen kuwa oo intooda badan taageersan Ahlus Sunna wal Jamaa ciidanka taabacsan in mar kale Gurceel ay gacanta ku dhigaan ciidamada Ahlus Sunna ayaa gudaha u galay xarumaha kala duwan ee magaalada sida saldhigga booliiska iyo xarumihii kale ee maamulka uu ku shaqeynayay iyagoona hadda doonaya in ay xaqiijiyaan ammaanka guud aad bayna u feejigan yihiin ciidamada oo waxa ay ka feejigan yihiin culays kasta oo uga imaan kara dhinaca maamulka Galmudug ciidankii isaga baxay magaalada Gurceel madaxda sare ee maamulka Galmudug saraakiil kala duwan oo ciidankooda taabacsan wali arintan si rasmi ah uga maysan hadlin asaate waxa muuqanaysa in ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka maamulka Galmudug ay ka soo ruqaansadeen dhinaca Dhuusamareeb iyagoo doonaya in ay weerar rogaal celis ku soo qaadaan inkastoo aysan wax dagaal ah ku galin ciidanka Ahlus Sunna wal Jamaa magaalada Gurceel haddana ciidamada ka soo baxay Dhuusamareeb ayaa la saadaalinayaa inay isku dayi doonaan in dagaal ay uga saaraan ciidankan gudaha magaalada soo galay ee taageerada ka helaya inta badan dadka deegaanka marka laga hadlayo xaaladda la xiriirta dib u soo laabashada Ahlus Sunna wal Jamaa siyaasiyiinta iyo shacabka iyo odayaasha dhaqanka reer Galmudug waa ay ku kala qaybsan yihiin waxaana muuqanaysa qaar badan oo kamid ah waxgaradka reer Galmudug in ay qabaan in xilligan aysan habooneen Ahlus Sunna wal Jamaa inay dib u soo laabtaan halka siyaasiyiinta qaar ay taageersan yihiin soo laabashada Ahlus Sunna wal Jamaa siyaasiyiinta qaar waa ay diidan yihiin dadka qaar ee dhaliilsan siyaasadda madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxay u arkaan in Qoorqoor isagaba uu sabab u yahay in maamulka Galmudug gacantiisa ay ka baxaan deegaano dhowr ah Ahlus Sunna wal Jamaacana ay dib isku soo abaabusho waxaana loo arkaa in Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo laga kari waayay fikirkaaga caday madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble waxba dhexdhexaadintooda isku boorqarin fikirka aad ka qabto halka xaaladda ay taagan tahay guud ahaanba dalka sida madaxweynaha Jubbaland madaxweynaha Puntland mowqifyadooda ay u cadeeyeen adigu waa inaad cadeysaa waa uu ka gaabsaday marka waxa la leeyahay culayska uga imaanaya odayaashiisa dhaqanka iyo siyaasiyiinta qaar awgeed ayuu isaga yareynaya wuxuuna doonayaa Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor in uu doorashada u raro magaalada Cadaado isla markaana dadka qaar ee siyaasaddiisa taageersan waxay u arkaan in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo aan aad ula dhacsaneen nidaamkii dhexdhexaadinta ee uu ka dhaxwaday Qoorqoor isaga iyo madaxweynaha in arintan uu kaalin ku leeyahay oo Ahlus Sunna inay soo laabato kaalin ay ku leedahay dadka qaar markaad fiiriso xafiiska ra'iisul wasaaraha aadka u dhaliila waxay leeyihiin waxa ku cadeynaysa in Ahlus Sunna wal Jamaa taageero ay ka helayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xagee ay Ahlus Sunna tiradan ciidanka ah aadka u badan iyo waliba hubkan xagee ayay kala yimaadeen hub aad u kooban ayay ka tageen markii ay iska wareejinayeen xukunka ama awood looga saarayay Dhuusamareeb iyo magaalooyinka kale xagee ayay waxaan ka keeneen dadka qaar ayaa isweydiinaya sidoo kale marka la eego isla Ahlus Sunna wal Jamaa wali si rasmi ah uga maysan hadlin xaaladan laakiin waxay ku soo aadeen dib u soo laabashadooda xilli Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu culays badan kala kulmay xitaa qabashada kuraasta qaar ee doorashada aqalka sare oo ku harsan Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxa lagu dhaliilayaa in magaalada Muqdisho fariisin uu ka dhigtay inuusan war iyo wacalba u haynin Galmudug iyo xaaladaha ka jira xagga ammaanka ba ugu badnaadaan oo uu gacanta u geliyay Axmed Macalin Fiqi oo xildhibaanada madaxweynaadkooda dhamaaday oo kamid ahaa isla markaana Axmed lagu dhaliilayo in nidaamka uu wajahayo amniga guud ee Galmudug wax micnaha uusan keenin isla markaana Facebook uu ku eg yahay wasiirkaas waxa laga soo shadaal qaadanaya
dagaaladii lagu hoobtay ee ka dhacay qaybo ka mid ah Bacadweyn iyo deegaano kale hoos yimaada oo al-shabaab lagula galay oo deegaano dhowr ah laga xoreeyay oo Camaara la tagay oo meel kasta la tagay oo markii dambe ciidanka Galmudug ay dib u soo gurteen iyo kuwii dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo saraakiil muhiim ah looga dilay Galmudug gawaari looga qabsaday al-shabaabna jab lagu gaarsiiyay weeraradaas waxa dadku ay isweydiinayeen maxaa keenay in si fudud looga soo baxo aagaasi maxaase ay ka dhigan tahay dib u soo laabashada Ahlus Sunna wal Jamaa inta badan dadka reer Galmudug waa ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadda laakiin waxa isha lagu hayaa bal tallaabada xigta ee uu qaado madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo warar soo baxay ay sheegayaan inuu si degdeg ah ugu laaban doono magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug Dhuusamareeb waxay ahayd in doorashooyinka aqalka sare la dhameystiro aqalka hoose la gudagalo laakiin haddii mushkiladan ay furmatay xagee ayaa loo dhaqaaqi doonaa waa waxa kale isha lagu wada hayo markaad fiiriso baraha bulshada dadku ay ku kala aragti duwan yihiin qaar ayaa dhaleeceynaya nidaamka Ahlus Sunna ee dib u soo laabanaya qaarna waa ay soo dhaweynayaan oo waxay u arkaan Ahlus Sunna inay yihiin dadka kaliya ee al-shabaab la dagaalami kara oo sanadihii ay haysteen deegaanada Galmudug ka xoreeyay al-shabaab qaraxyadii halkaas ka joojiyay dadka al-shabaab lagu tuhmo gacan bir ah ku qabanayay laakiin tan iyo markii madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu yimid in xaalka uu noqday in dad caqiida ahaan ay kala duwan yihiin Ahlus Sunna wal Jamaa lagu arkay deegaano dhowr ah waxaana ay markaasi mas'uuliyiinta Ahlus Sunna inta badan ba sheegayeen inay tahay taasi mid muujinaysa in mar walbaaba qatar ay ugu jiraan dadyooga reer Galmudug inay qatar kala kulmaan al-shabaab iyo dadka kale la midka ah hadda aan idin hadlayo xaaladii ugu dambeysay ee Galmudug waxa ay sheegaysaa gaar ahaan Gurceel in jawiga uu degan yahay ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaa oo aad u hubaysan halkaasi lagu arkayo isla markaana ciidamadu ay baaritaano kooban sameeyeen marka la eego xarumaha ay gacanta ku dhigeen sida saldhigga booliiska iyo xarunta degmada ilaa iminkana ma jirto wax iska caabin ah oo ay la kulmeen ma jirto wax kacdoon dadweynaha oo halkaasi ka jira inkastoo dadka intooda ugu badan caleemo qoyan ay ku soo dhaweeyeen sidoo kale wararka ka imaanaya isla Gurceel waxay sheegayaan in taliyihii saldhigga booliiska Gurceel uu si rasmi ah isugu dhiibay Ahlus Sunna wal Jamaa sawirro lagu baahiyay baraha bulshadana waxa ay muujinayeen isaga oo la taagan ciidamo ka tirsan kuwa Ahlus Sunna wal Jamaa war-saxaafadeed ka soo baxay goordhow Ahlus Sunna waxaa lagu sheegay inaysan duulaan cidna ku ahayn isla markaana ay iska difaaci doonaan cid kasta oo isku dayda in weerar ay ku soo qaado xaggooda waxa sidoo kale xogtu ay tilmaamaysaa daawadayaal in 400 oo askari oo ciidamo haram cad ah oo laga qaaday magaalada Muqdisho ay ka degeen maqribnimadii maanta ama gelinkii dambe ee maanta garoonka Dhuusamareeb isla markaana la doonayo inay iska difaacaan haddii ay isku dayaan Ahlus Sunna wal Jamaa in weeraro ay ka fuliyaan qaybo ka mid ah gudaha maamulka Galmudug sida Dhuusamareeb iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan marka la eego sida Ahlus Sunna wal Jamaa ay gacanta ugu dhigtay Gurceel waxa dad badan ay u arkaan inay tahay fursad weyn oo xilligan Qoorqoor u noqon karta hakinta arrimaha doorashooyinka Qoorqoor waxa dad badan ay ku dhaliilayaan inuusan markii horeba ka qonneen in uu ku shaqeeyo magaalada Dhuusamareeb oo uu jecel yahay in cadaado uu aado oo reerkiisa ay ku badan yihiin markaad eegto hadda xaalka sida uu yahay Ahlus Sunna wal Jamaa waxay soo bandhigeen sidoo kale gaari booyad ah iyo gaari nooca dagaalka ah iyo qoryo PKM u badan oo ay sheegeen inay ku qabsadeen deegaanka Bohol waxaana sidoo kale ciidamada Ahlus Sunna oo ah kuwo aad heegan ugu jira ay leeyihiin haddii nala soo weeraro inaga ciidan duulaan ku nahay ma jirto haddii nala soo weeraro waxaan qaadi doonaa tallaabo kasta oo jawaab ah Ahlus Sunna wal Jamaa in ay gacanta ku dhigaan Gurceel waxay ka dhigan tahay in Galmudug mar kale ay kala qaybsanaan karto Ahlus Sunna wal Jamaa waxa hogaamiya Sheekh Shaakir iyo Sheekh Maxamuud labadooduna waa dad ka soo jeeda marka la eego beesha Cayr sidoo kalena Ahlus Sunna wal Jamaa ayaa suuragal ah sida warar badan ay tibaaxayaan in ay ka dhigaan gorgortankooda ugu horeeya in la bedelo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ay tabashooyin badan ka qabaan sidii awoodda ay ku dhehneed dagaalka uu dhacay ee lagala wareegay guud ahaanba deegaanada maamulka Galmudug sidoo kale daawadayaal markaad eegto hadda waxaa ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor lama oga tallaabada xigta ee uu qaadi doono
ma waxay noqon doontaa in caasimada laga raro Dhuusamareeb mise wuxuu furi doonaa iridda waanwaanta lama oga xukuumadda kaalin may ku leedahay villa Soomaaliya kaalin may ku leedahay xaaladan cakiran ee kusoo korortay Galmudug weli faahfaahin lagama helin wixii kusoo kordha waan kusoo gudbin doonaa muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada follow dheh page-keena sidoo kalena like dheh sidoo kale barta aynu ku leenahay YouTube-ka haddii ay tahay markii ugu horeysay aad na soo booqatay waxaan kaa codsanaynaa inaad tiraahdo subscribe share-na aad tiraahdo qaybta comment-gana fikirkaaga inoogu reeb mar kasta email kasto aad joogtaanna waxaan idinka mahadcelinayaa sida had iyo goorba aad ugu xiran tihiin wararkeena iyo barnaamijyadeena